Hafsa, Yes, teacher, I'm fine. have you tried to listen to this work and then fill these blank spaces? Did you try? Ma ka shaqaysay halkan? No, teacher. Okay, we are going to listen together. And Okay. Tape script 8.11. Who is it? Conversation 1. Morning. Monday again. Yeah, I hate Mondays, and it's another busy day. I know. I have 3 meetings this morning. Conversation 2. Hi. Can I meet you after work? Yeah, that's great. 6 o'clock, okay? We can go to that restaurant next to the Chinese supermarket. Fine. I want to go there again. The food's delicious. Conversation 3. Oh, no. Rain again. Well, it's not so bad. Yes, it is. The sky's really black. You're right. No golf today, then. Conversation 4. It's a lovely afternoon. Do you want to go out? Yeah. Where do you want to go? What about Stanley Park? Great. I love that park. The mountains look fantastic from there. Come on, then. Let's get the bikes. okay, so this one is just a Monday morning, and it is a Monday morning again. uu leeyahay marka kulay shaqadii uu tagay Central Bank maadaama uu ka shaqeeyay qofka hadlayo hore aan soo dhigeysanay waa Steve ayaa hadlaya. So shaqada markaad tagtid saaxiibada shaqada ayuu la kulmi kariyaa marka waxay noqon kartaa a workmate, a friend, a man. intaba haddaad dhahdo waa saxan yihiin. Workmate waxaa la qofka isla shaqaysiin, a friend saaxiib, and then can we meet after work? ma kulmi karnaa shaqada kadib. macnaha we go to that restaurant. qof ay isla shaqeeyaan waa marka shaqada kadib. So isagana waxay noqon kartaa workmate, qof ay isla shaqeeyaan, a friend ayay noqonaysaa. weeda ayay ka hadlayaan oo ay ka wada sheekeysanayaan. qofku la hadli karana waxay noqon kartaa sidoo kale saaxiibkiis, a friend ayaa dhihi kartaa. Man haddaad dhahdo okay waaye. Stanley back and going out. Can we go out tonight? The weather is go. Can we go out? Going out marka qofka oo banaanka la aadi karto oo casho ala soo qaadan karto oo guris la joogtiin saaxiibtiis la noqon karta. Girlfriendigiisi waaye. Are we together? So he's talking to his girlfriend. Yes. He's talking to his girlfriend. So waxaan aadaynaa 8.11. So we check haddii ay wax jiraan in la fasiro u baahan. 8.11. morning subax wanaagsan. Monday again. mar kalena waa isniin. mar kale isniin. And yeah, I hate Mondays and it's another busy day. waa necbahay isniinaha waana maalin kaloo mashquul ah. So qof ay shaqada iskala shaqeeyaan waa qofkan. Okay. I know and I have 3 meetings this morning. waan ogahay. I know and I have 3 meetings. waxaan haystaa 3 kulan this morning subaxdani. 3 kulan ayaa aan haystaa oon qaban rabaa subaxdani. Conversation 2. Hi, can I meet you after work? Haye, makula kulmi karaa shaqada kadib. And yeah, and that's great. taas waa okay, waa fiican tahay. hagaag. 6 o'clock, okay. And 6 o'clock marka shaqada kadib qofkay kulmi karaan
6 waa lixda oo buura ah. We can go to that restaurant next to the Chinese supermarket. waxaan aadi karnaa restaurantigaasi macnaha ku dhegan supermarketka Chinese-ka. Supermarket waxaa waa meel oo dukaan weyn oo macnaha wax walba gudihiisa laga heli karo oo u dhammaystiran yahay. Special haddana alaabtana alaab kastaba meel gooniya loo sameeyey oo lagu hagaajiyey oo wax walba u dhammaystiran yihiin supermarket aan lahaa. So marka supermarketka Chinese-ka restaurantiga ku dhegan ma aadin karnaa. Marka qofka oo 6 isku raaci karaan waa kuwa qofka meel ay 6 isku raaci karaan 6 o'clock. inta qof soo wacda dhahday shaqada kadib 6 israacayna. So waxay u badan kartaa saaxiibtiis, right? Because lixdii oo buura waxaa laga rabay shaqadu lixdii meel 5 oo shaqada ka soo baxa inta soo safray. So girlfriendigiis way noqon kartaa, friend way noqon kartaa, a woman hadaa dhahdana jawaabtaada ma qaldanahayso because qofka hadlaya waa naag. Conversation marka wuxuu dhahay fine, qofka kale wuxuu dhahay fine, waa fiican tahay taas. I want to go there again, waan rabaa inaan mar kale xagga aado. The food is delicious, cuntadu way macaan tahay. marka haddaa sheekadii hore ee la socoteen ninkan Steve wuxuu ka sheekeynayay wuxuu jecel yahay inuu aado Chinatown si uu cuno Chinese foodka inay cunaan asi saaxiibtiisa. So qofkan saaxiibtiisa u badan tahay. Conversation 3, oh no, rain again. Oh no, rain again. macnaha oh no macnaha waa wax lala yaabo oo diidma ah. Rain again mar kale roob miyaa da'ayo. Rain again mar kale roob ah. marka adoo dhahay waa waxaan mar kale roob miyaa da'ayo ama mar kale mid rooba. marka roobku diidan yahay. It's not so bad. It's not so bad. aad uma xumo. Yes it is. How aad buu xun yahay. The sky is really black. cirka dhab ahaantii waa madow. You are right, waa saxan tahay. No golf today. Then maanta ma jirto ciyaarta golfka. maanta ma jirto. Then kadib ciyaarta golfka ma jirto maanta. Conversation 4, it's lovely afternoon. Do you want to go out? waa macnaha galab qurxan macnaha galab la jeclaysto. Do you want to go out? ma rabtaa inaad banaanka aado? Yeah, where do you want to go? xagee baa rabtaa inaad aado? What about Stanley Park? Warren Stanley Park. Great, I love that park. The mountains look fantastic from there. waan jecelahay baaggaas. buuraha waxay xaggaas uga egyihiin kuwo qurux badan ama cajiib ah. Come on then, soo baxee. Let us get the bikes. aan qaadana bayskiiladeena. Bikes waa bayskiilo. Let us get the bikes. Bike waa bayskiilo. waxaan rabaa Mawlid inaa akhrisid from conversation 1 ilaa aad keentid halkan number 3. waxaa keenaysaa ilaa number 2 ilaa conversation 3 aa keenaysaa from here. 1 adaa akhrisid, 2 adaa iskale, 3 na xabsaa ka bilaabayso ilaa 4. So can you read? Yes, I can. Okay, go ahead. Conversation 1. Morning, Monday again. Morning, Monday again. Again. Yes. Again. Monday again. Yes, I hate Mondays, and it's another busy day. I know I have 3 meetings this morning. I have 3 meetings this morning. Conversation 2. And I meet you after work. Yeah, that's great. That's great. 6 o'clock. Okay, we can go to the restaurant next to the Chinese supermarket. Fine. I want to go there again. The food is delicious. Very good. Hafsa, can you go ahead? Number 3 and 4. Okay.
Conversation 3. Oh no, rain again. It's not so bad. Yeah, it is. The sky is really black. You are right. No go today then. Conversation 4. It is a lovely afternoon. Do you want to go out? Yeah, where do you want to go? About Stanley Park. Kate, I love that park. The mountains look fantastic from there. Come on, let's get the bags. The bikes. So in groups, adiko in koox and talk about your hometown, ka hadla magaaladiina ama magaalada aad degantihiin hometownkiina. And where do you live? Xagee baad ku nooshahay? What is there in your town? Maxaa halkaas yaalo ama maxaa jiro oo aad sheegi kartaa townkiina ay leedahay? What do you do there with your friends? Xagga markaad joogto maxaad ku samaysaa oo aad la samaysaa saaxiibada? Where do you go shopping? Xagee baad dukaameysiga u aadaa? How do you travel? Xagee baad sidee baa u safartaa? Is it a good place to live? Ma meel wanaagsan baa oo lagu noolaan karaa? So haddii aad xasuusatid qaabka looga hadlay Vancouver iyo Steve-na haddana oo usii sharaxay adigoo soo deymanayo ama boorogreynayo soo qaadanayo jumladaha qaar ee macquulka ah. Jumlad kasta meeshaas ma gelin kartid because meelaha waxyaabo waxaa jirta aysan magaaladaadu lahayn ay Vancouver leedahay. So marka magaaladaadu waxay leedahay kaliya ka hadal. Skytrain ay magaaladeedu leedahay hadhihin magaaladeedu haddaysan ocean ama sea aysan leehan ferry baan qabnaa iyo hoteelaa ka hadli kartaa, hoteelaa qabanaa dhihi kartaa. So marka waxa realistic ah oo meesha ka jiro ka hadal questionskana ka jawaab. So marka haddaa hadda qalin iyo been ah haysato waxaa meesha ku qortaa xagee baa ku nooshahay ka jawaab. Where do you live? Hoosta waxaa ugu qortaa I live in meel heblo. Labadiina hadda qad ku jirtiin soo qof walba ha qoro meesha uu ku nool yahay. What is there in your town? Halkaasi maxaa jiro oo magaaladiina oo ku dhex ka sheegi kartaa? So waxaa dhihi kartaa oo kaleeto maybe there is a park, a public garden, beer ama park ayaan qabnaa. Waxaa kaloo ka hadli kartaa waxaa jirto kaleeto maybe there is a big market and in my town where everyone goes to buy fruits and vegetables. Waxaa jiro suuq weyn halkaasuu qof walba kasoo dukaamaysto kasoo gato qudaaraha cuntooyinka cagaarka iyo fruitka iyo qudaarta oo kaleeto. Marka haddana meesha waxaa imaanaysa oo kaleeto waxaa raadi kartaa meeshiinoo kale maxay leedahay. Waxaa dhihi kartaa there is a cinema haddii cinema leedahay oo kaleeto waxaa jirto cinema jirto where we go sometimes to watch a movie or a film. Okay, then the next one waxaa dhihi kartaa oo kaleeto magaaladiina ma leedahay maybe festivals meelaha ciidaha oo kale laiskugu imaado magaaladiina ma leedahay. Buuro iyo bannaan duuro cagaara oo maybe dadka iskaga soo indadogsadaan magaaladiina ma leedahay. Okay, webi hadduu maro waa ka hadli kartaa. Okay, meelo dadka iskugu imaadaan wax adiga oo gooniya ay magaaladiina aad ku sheegi karto ay ku faani karto waa inaad sheegtaa. Haddii aad English ku garanaynin af Soomaali ahaan ku sheeg. English iyo Soomaaliga kadib finally wixii aan sixi karno dhan aan sixinaa. Then the next one waxaa waaye what do you do there with your friends? Maxaad qabataa oo markaad magaalada joogtid xilliyada fasaxa ah maxaad la samaysaa saaxiibada?
Okay. Where do you go shopping? xageeba u aada dukaameysiga meel caana ma jirtaa oo magaaladu ay leedahay u dukaameysi u aadid ama supermarket weyn ha noqoto. Okay. ama ha noqoto suuq weyn. Okay, magac leh. And how do you travel? sideeba macnaha u safartaa? Ma tareen, ma baabuur, ma okay, ma feeri baa qaadatiin oo bad iyo biyo ku safartiin, dooman baa qaadatiin, ma diyaarada qaadatiin, see u safartiin magaaladiina? Is it a good place to live? ma meel aad macnaha ma meel fiican, meel in la noolaado ku fiican ba nolosha in lagu noolaado meel ku fiican miya? So by now hadalkayga markaa dhamaystiri waxaan rajeynaa qof walba inuu points haysto uu ka hadli karo. waxaa idin siinaa extra 5 minutes qof walba waxaan rabaa magaaladiisa inuu ka hadlo. Okay, teacher. markaad diyaar tahay ready ahayd. Yeah. It's okay. Hay, diyaar. Come here. Teacher, read your honor. Haye. How so good? When I saw I had where do you live? I live Okay. in Galkayo. Tell me, slash jawaabta kala sii. I live in Galkayo. Aha. Midda labaad waxay ninka be iyo qaw magaalada maxaa ka jiro there is in my town hotels and fast food and supermarkets big restaurants and fast food. All of these ways. So marka waxaa tiri hotels, supermarkets and big restaurants ay jiraan. Okay. And fast food. And bicycles, right? Fast food. Nala either see my son. Festival, what are the festival? Festivals, All of these ways. Yeah, next ka jawaab midda kale xigto. What do you do there with your friends? I play football with my friends. I play football with my friends. Maxaa kaloo sameysaa? What else? What else do you do? Waxyaabo badan aan sameeyaa English ay maqan. Soomaaliga iyo Ingiliis, Soomaaliga ku hadal, limbalaanay Soomaaliga ku sheeg maxaa samaysatay? Waxyaabo badan I play yani football with my friends. Sidoo kale dalxiisa aadna maalmaha kale. Ma fahmin baiskila qaadatiin, you go baiskila qaadatiin sax? maya waxaan ku baabuur ka qaadana dalxiisa aadna dalxiis meelaha oo babaadiya. We drive into intee marka gaawada xagga u qaadatiin oo kaleeto? Rural area. Okay, we drive into okay, to the country. Rural area waxaa to the country. Okay, to see the beautiful views
beautiful views of the rural areas, mountains. And do you see mountains? Buram soo aragtaa? Small mountains, small. Okay, hills. We can say hills. See some hills. And take photos. Sawirro ma iska soo qaadin markaad duurka tagtiin? aad iyo aad inta kale loo aadaaba. Take photos. Okay, that's good. And markii laga reebo inaad gaari u qaadatiin meelaha banaanka badiyaha ah oo sawirro aad gashiin, what else do you do? waxaan kala sameynaa maalmaha magaalada waxaa ku yaala meelo barxado waaweyn oo aan ka sameynaa tartan yani orod ah oo dhalinyarada xaafadda tartan qofka ugu orodka badan iyo waxaasaa ku sameynaa. Okay. We sometimes we have open grounds where we held and running competitions and running and athletic and sports. We run, we jump, and football sometimes. Okay, very good. And then where do you go for shopping? Where do you go shopping? I go shopping to 5-star mall. 5-star mall. 5-star mall. It's a big mall. Inta ku yaala magaalada bartamaheeda ama magaalada banaankeeda? Magaalada bartamaheeda ku yaala. Okay. And how do you travel? Sidee baa magaaladiina la iskugu safraa, la iskugu gooshaan magaalada dhexdeeda? Yeah. We travel to car. Gaariyan ku safarnaa. Okay. Driving a car. We drive a car. Very good. Do you have horses? Sometimes do you ride horse? Farda ma fushin? No. Okay. We don't have a horse. Okay, very good. And finally, do you think it is a good place to live? Very. Yes, it is a great city to live in. Really? I really love it. I really love my home country or home and city, hometown. So marka waxaad dhihi kartaa I live in Galkayo. Okay. Galkayo is an amazing city. It is the headquarter of Muduk. It has a good number of population, and the city has historic sites. Maybe there are different people or different communities who live in the city. It's a beautiful, and there are a lot of things to do in Galkayo. Okay. Inside Galkayo, there are hotels which are expensive and some which are cheap and comfortable. We have big supermarkets where we go for shopping, and also there are amazing and beautiful restaurants where we can go for eating Somali food. And we go and we have festivals, Eid al-Mubarak and Eid al-Adha, and where we meet and with our people, and maybe we celebrate
different occasions. Okay, in my free time, I play football and I like driving to the up country and okay, to see the beautiful view of the rural areas, such as small hills, take photos. We have an open ground in outside of Galkayo, where we held sports such as athletic. We sometimes run, compete with each other. We do jumping, and I play football. I like football so much. In Galkayo, and there is good places to go for shopping. I go to the five-star mall for shopping. It's really a big mall and a nice place to have to go for shopping. It is in the city center of Galkayo. Okay, and the only mode or the only way to travel within Galkayo is by driving a car or by having by going with by taking the public transport such as bus services. Also, it's a great, I believe Galkayo is the best place to live in, and I really love it. It's fantastic. Intaas laga rabaa inaad kasoo qorto. intaas ma qorto figa Yeah? ma qoran yani qoraal ayadoo qoran ma u qorto May, ani markaan hadlayo, videoga waa soo diraa, soo adaa laga rabaa inaad kala soo dhex baxdo. yani waxaan rabaa waa qoranaya intaas liisa qoranaya haddii aa qortana soo dhiga soo qora kale ana qorna waa qori kartaa inaad dhegeystida rabaa soo qortid hadaa qori kartid. Mise ma fahmayso horta? Ma fahamto waxaan ka hadlay? oga waa fahmay eraya fahmin ay ku jiraan laakiin waa fahmin badan Dib ma lahan insha Allah. Because ma wada qorin qaar points un baan qorin magaalada degan tahay meelahan ku ordaa waxaas yarkaan qoray. So ayadana waa kuu soo diray. ana hadhow video ka qorna Hafsa, it's your time. Can you tell us about your city, hometown? Yes. Okay, go ahead, tell me. Where do you live? I live in Bo. There are park, big hotel, bank, cinema, supermarket. What do you do there to your friend? We visit the mountains and family. حفصة جامعة عمود ولا عمود كم قطع لبورة Where do you go shopping? I go to the big mall, supermarket, center. How do you travel? I travel train or bus or car. Very good. Yes. Is it a good place to live? It's best place to life because. So you can say I live in Galkayo, in the city center. Galkayo is an amazing city, is an amazing town. It is the second capital, or it is the headquarter of Odal. And it has big hotels and okay. I live in Borama. Borama is the capital city of Odal. Borama is amazing town. It has big hotels and lovely supermarkets, and we also have big restaurants. And okay, in my town, and also we have festivals such as Eid al-Mubarak and Eid al-Adha. Okay, we like play and we have football fields where the youth can play. We also have a big and famous university known as Amud University, where all the neighboring towns, they come for education. Some people come from all the way from southern part of Somalia just to come to Amud and study. We also have
We sometimes go to the country or the rural area and the small villages near and Borama, so that we can have maybe drinking fresh camel milk. We can also see the beautiful mountains and hills. Okay, we can also see the open and big. We can see the big trees around the bush. Okay, we also like to see wild animals there. Okay, we have open grounds where children can play football, maybe run, jumping. We also have big stores where I can go for shopping, buy clothes, maybe big hotels or big restaurants where we can go and eat different varieties of food such as maybe pizza. Okay. And the only mode or the only way to travel within the city is by driving a car or by taking the public transport such as the bus. Okay, it's a great city to live. Intaasaa lagaa rabaa inaad qortid su-aalaha inaad fiirsid lagama rabo. Su-aasha hal mar aa fiirinaysaa inaa wixii inay ku hoos qoran yihiin lagaa rabaa, so hal mar aa ka sheekaysid. Okay, so aan ka gudubnay. Write about your town. Wax ku saabsan magaaladaada soo qor. So saa usoo qoraysid waa sida hadda u sharaxay. Waxaa leedahay my town is a town in magaaladeedu waa magaalo intaas marka waxaa laga wadaa meesha ku taallaa sheegaysaa. In Somalia, the best time to visit xilliga ugu fiican ee la booqan karo xilligaas waaye. Okay, we go meesha la aado meelaha la aadnaa marka wax la ciyaarayo, we go maybe country or the rural area. There are a lot of things to do maybe in my town. We do A, B, C, D, E, F, G. Waxaas meeshin dhan aa qoraysaa. There are good restaurants in my favorite. My favorite restaurant is dash dash wixii magaaladaada ka hadlaysaa. Expensive inay tahay iyo inay cheap hotels jiraan, comfortable hotels. The best way to see the town, sida qaababka magaalada loo aado, loo saraaco gaariga, socod, lugeyn, waxa dhan inaa qortaa lagaa rabaa. Okay, marka waxaan rabnaa insha allahu maadaama ardayda kalena ay maqan yihiin in cashirkan ayagoo jooga aan wada dhigano. Haddana almost 43 waaye. So wax su-aala ma jiraan qaabka cashirka kan looga soo shaqeynayo ma fahanteen? awantii inaan kan ka soo shaqaysiin. Okay, pointiska kan waaye kan kaas waa inaad kasoo shaqaysiin, waa inaad kasoo qortaa magaaladaada wax ku saabsan. Insha allah hadduu ilaahay idmo waxaa idin rajeynaa weekend fiican, best weekend. Enjoy your time. Let us meet on Saturday. Okay. Okay.